magaalada Berbera gaar ahaan goobta loo asteeyay in lagu gubo badeecadaha xumaaday ayaa waxa halkan lagu gubay badeeco ka kooban sharaab iyo sidoo kale caano taariikhda soo bixitaanka ama dhicitaanku ay dhacday taasi oo lagu soo qabtay gudaha dekedda Berbera waxaana munaasabada loo qabtay gubitaanka sharaabka iyo caanahaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiinta hay'adda dhawrista tayada iyo sidoo kale gudoonka gobolka Saaxil iyo waliba sidoo kale maamulka customka ee Berbera ugu horeynba waxa halkaasi ka hadlay isuduwaha hay'adda dhawrista tayada ee gobolka Saaxil oo ka warbixiyay alaabtan iyo badeecada ay ka kooban tahay waxaanu ku gubaynaa godka loogu talagalay in lagu gubo badeecadaha xumaaday iyo kuwa waqtigoodu dhamaaday ee degmada Berbera agab sharaab iyo caano tankooduna dhan yahay 3,000.78 tan badeecadaas oo lagu soo qabtay marsada Berbera kana mid ah hawl maalmeedkayaga wixii faahfaahin ama dardaarana waxaan u dhaafayaa madaxda iga dambaysa geesta kalena waxa iyagu halkaasi ka hadlay oo hadalka iska daba qaatay mas'uuliyiin ka socota customka Berbera iyo waliba mas'uuliyiin ka socota hay'adda dhawrista tayada iyo waliba gudoonka gobolka Saaxil ee lagu gubo badeecadaha dhacay iyo badeecadaha khayska waxaan noo suurta gashay ka maamul ahaan in aanu ku guuleysano badeecada inta la eg ee taalay muddo dhaafka customka gudihiisa taalay in la gubo waxaan wada shaqeyn toos wada leenahay hay'adda quality controlka oo mas'uuliyad xoog ay ka saaran tahay badeecada wadanka galaysa inay tayadeeda ay ilaaliso taana mar walba waxaan ku gacan siinaa inaanu cashuurin shay quality controlku ay soo xaqiijiyeen mooyaan shay kale aan cashuurin markastana waxaan iska kaashanaa aniga iyo isku duwaha hay'adda quality controlkuba in haday dawo noqoto iyo hadii badeecad kale oo cabitaana iyo cuntaan ay noqotaba inaanu sugno qualitygeega maadaama ay tagayso oo gurigii iyo xaafidaheeni ay dib ugu noqonayso alxamdulillah ilaahay baa mahad iskale maanta halkan isku keenay si aynu u aragno shaqadan aad iyo aad ka culus ee hay'adda tayadu ay ka soo shaqeynaysay waxa goob joog ka oo aan u mahad celinayaa gudoomiyaha gobolka Barsaab gobolka maamulaha customka Berbera dawladda hoose ee Berbera oo wada shaqeyn dhow ay naga dhaxayso aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxay tusaale u tahay laamaha dawladdu haday si fiican u wada shaqeeyaan inaynu wax badan qabsan karno halkan waxa maanta lagu gubayaa 12 container oo alaab caano iyo sharaab isugu jira oo muddo 12 bilood sanad ku dhow dekedda yaalay muddadaasna aanu muxuu ahaa kala shaqeynaynay laamaha dekedda haday tahay DP World iyo haday yihiin shipping line-ka iyo muxuu ahaa ganacsatadii keenay oo isugu jiray ganacsi ama ganacsade muwaadina iyo ganacsate ajnabiya oo markii alaabta aanu qabanay ee waqtigoodu aad u soo dhawaa ay ganacsatadii ajnabiga ahayd ka baxsadeen taas oo annaguna aanu tallaabadii xeerkayagu dhigayo waajibaadkayaga aanu ka gudanay oo qaadatay muddo badan inaanu alaabtan muxuu ahaa ay ka baxsadeen dadka ajnabiga ahi aanu sharciga la tiigsano dadkii ka mas'uulka ahaa ee muwaadiniinta ahaa taas oo ay nagala shaqeeyeen xeer ilaaliyaha guud ay nagala shaqeeyeen wasaaradda ganacsigu liisankiina shirkadda annagoo xeerkayaga muxuu ahaa qodobkiisa 9 adeegsanayna shirkadda liisankii lagala noqday wixii khasaare halka yimidna laga qaaday shirkadda si alaabtan lagu gubo alxamdulillah maanta ayay noo suurta gashay waxaanu aad iyo aad ugu mahad celinaynaa laamaha kala duwan ee nala shaqeeya maareeyaha dekedaha muxuu ahaa dawladda hoose Barsaabka customka ama maamulaha customka tubatariyada ama ciidanka muxuu ahaa ilaalada dekedda dhammaantood aad iyo aad baad u mahadsantihiin godkan maanta waxaynu ku gubaynaa caano iyo sharaab dhacay oo muddo sanada dhacsanaa runtiina tiradiisu aad u fara badan tahay
marka waajibaadkii shaqo ee quality controlka ay ka mid tahay inaad gudataan anaguna markhaati waan ka nahay waxaan idinku hambalyeeynaa inaad shaqadiina sida wanaagsan ee u daba taagan tihiin mar walba wixii magaranaysaa bulshada dhibaato u leh aad uga hor taagan tihiin cabdirashiid cadare MMTV Berbera